السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخار شرفت الله إلهي إذن بركة دمانتين مولو بقى جوكتان إلهي وحا إذن كغبر يعني وعافمات تماما إذن سيو إلهي إذن ككريو عذر كان هذا oo soo kordhay oo dalal badan dib ugu soo laabtay marka ilaahay waxa idin kaga baryay marka koowaad caafimaad tamaam ah ilaahayna waxa ilaahay ka baryayna inuu diinteena nagu sugo haddii ay intaas ka soo tago waxaan rabay inaan ka hadlo wax yar xilligan aan ku jirno dabaaldega ah oo yul ahaan ama christmaska af ingiriiska lagu dhaho ara wax yaris inaan ka dhaho waxaa jiro walaalo badan aanan fahansaneyn maxay tahay yulka ama christmaska ma waxa waayay maalin la dabaaldego dadka ay farxaan familiyada isku imaadaan masaas kaliya mise waxa ka dambeeya dabaaldegan waxa kaloo jiro ah dad kale oo muslimiin ah oo arinta sidaas u arka kaliya dad dabaaldegaya waaye dabaaldegooda iyaga dabaaldegaya anigana waxba kuma jabna marka inaan ka qayb qaato dabaaldegan especially dadkeena ku nool qurbaha waxaan rabaa markiina clipkan yar oo ugu talagalay inaa wax yaris aan taabto insha Allah taala anoon hoos u daadegaynin inaa u taabtaara inaa ka wax yar ka taabtaara Christmas asal ahaan meel walba ku qor waxa ku qortaa Christmas maxaa waay ama waxa ku qortaa Yule maxaa waay ku qor waxa ku soo baxaysa inay tahay maalinta loo dabaaldegayo maalintuu Nabiga Ciisa uu dhashay alayhi salaam su'aasha waxa waay loo dabaaldego waa la gartay nabiyada kamida maalintaas dhashay su'aasha waxa waaye iyaga agtooda Nabiga Ciisa muxuu ka yahay waxaan ka hadlaa kristaanka agtooda wuxuu ka yahay lababa isku dhex daraan inuu yahay ilaahay oo laga soo ilaahay waxa markay sharxayaan ilaahay oo asoo bil aadan imaaday si dadka xogaa u fahmaan naxariistiisu arkaan waxa kale ilaahayna waxaas uu ka sareeyaa waxaasna ilaahay shaqo kuma laha ay ku matalayaan waxa kale oo dhahan ilaahay canugiisa waay ilaahay yaa dhalay isaga Nabiga Ciisa iyaga sida iyaga u arkaan waay marka dabaaldega loo dabaaldega waxa rab inaan ku sheego waxay u dabaaldegayaan ilaahay maalintuu dhashay ama kale maalintii oo ilaahay canugiisa dhashay ee iyagu dabaaldegayaan marka waxa raba baraarujintan yarta waxa ugu talagalay dadkan dabaaldegayo kulligood weydii maalinta Christmaska maxaa waa dheh meelaha ku qoran iyaga weydii iyaga waxa ku dhaan aniga ma aaminsani Christian ma ihi waxaan waxa iga gala ma laha familkeyga arkaa maanta la fariisan jiray waa faraxnaa waa maalinta familka hadii isna cibiin xitaa isku imaanayeen bis weydii waxa rabaa dheh laakiin maxaa waay maxaa la dhahaa Christmas laakiin waxa ku dhahay waa Jesus ama kale Jesus maalintuu dhashay waa ku dhahayn dan marka adiga waxa u dabaaldegayso maalintuu dhashay waa adiga laakiin si kale oo ka dhigata marka waxaa jirto dad badan og yihiin culimada inay culimo badan ay ka soo horjeedaan in la dhaho Merry Christmas ama kale aad dhahdid Guyul dad badan waxa arkay dhahayo maxaa dhacay dariskeyga iyaga way dabaaldegayaan anay darisa ahay waa inaa daris wanaag muujiyaa waa inaa hadid u geeyaa waa inaa ula farxaa marka waxa u malaysaa dadkaas inaysan fahansaneen daris wanaaga diinteena amaantay iyo markii laga hadlaa arin diina marka dariskaaga u dabaaldegayo laba inay kala yihiin ma fahansana dariskaaga sanad dhan aa jiro 12 bilood ka kooban anytime mar kasta oo maalin kasta daqiiqo kasta wanaag u sameynay haddii xanuunsanaa booqanay waa soo salaamaysaa hadida u geenaysaa waqtigeedoo kale oo dhan wax kastoo wanaag de bil aadanka isku sameeyaan diinteena fartay oo u sameynaysaa taas inta ka barnaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam dariskiisu yuhuudu aad u wanaagsanaa jira marka ina anaga u wanaagsanaano dariskeena gaal ha ahaadaan muuse ha noqdaan wan walbo waa ina aad ugu wanaagsanaana oo tacaamul fiican aad tusnaa la dhaqan wanaagsan aad tusnaa si diinteena inay wanaagsantaa u tusno maybe dhaqankeena inay nagu soo raacaan ay diinteena soo galaan mar walbo dalalkan qurbaha aad joogno waa ina maskaxdaada ku taagnaataa dacwada sidee diinta u fidiyaa ficilkaaga ka fikir ficilka haddii aan sameeyma diinta ka reebaysaa mise diinta dadka ku soo daraysaa laakiin marka imaato maalintay diintooda u dabaaldegayaan qofka muslimka ma aha inuu kala qayb qaato tusaale
waxaa dhahday arrintan waxaa umalaysiin culamadan badanaa oo joogo wadamada muslimiinta ay u badan yihiin waxaa laga yaabaa inuu dadka dhahaan ma kasaayaan meelay joogin ma ku qasbana inay dhahaana laga yaabaa laakiin muftimank wuxuu wax ka soo bartay iskool kristan wax ka bartay macnaha waxbarashadiisa zakir naik waa ogtihiin asaga dhan waxa waa meelihiisa dhan hindi isku dhex jiro waay oo dadka dhan uu ogyaho la dhaqmay dad badan oo soo muslimaa jiro xalay ugu dambeysay arkay diin show la dhaha laba dhalinyaro oo diinta soo gasho laga wareysanayo kulligood waxay ku leeyihiin yaa la dhihin merry christmas ina dhahna maaha because waxaa loo celinaa arrintan waxay tahay qofkii raba inuu ogaado nabi maxamed sal alay wasalam markuu maka joogay wanaagu kula dhaqmi jiray dadka dhan maalintii waxay imaadeen gaalada u imaadeen ay dhaheen qoraysta maalin ilaahay caabud ilaahayna adina maalina kaaga caabudayna waa qul yaa alkaafiruun markay soo degta waaye lakum diinukum waliya diin marka ina annaga diin gaalo ah oo u dabaaldegayaan maalin ilaahooda subxaana allah camaa yaquuluuna culuwan kabiira iyaga sida u arkaan ilaahooda ama ilaahay canugiisa u dabaaldegana waxa leedahay waa arrinaa ku saxan tahay guuyuul merry christmas aa dhehaysaa raggeeda kusii soco waxaa qaraysaa inay arrintaas toob tahay adi waxaa laga yaabaa inaad dhahdid ana maqilwe bis ciid mubaarak dheh maalintaada ilaaha kuu barakay maalintaada ku wanaagsanaato maalin u dabaaldega ilaahay maalintuu dhashay uu aaminsan yahay nabi ciise inuu u dhintay oo dembiga dhan dadka ka qaaday oo dadka dhan saas dembigooda loogu dhaafay aaminsan iyaga marka merry christmas iyo guuyuul labada ma dhihi karno taasna diintaada kasoo horjeedaa waxaa aaminsantaa waxaa aaminsanahay annaga dhan muslimiinta inuu nabilah ciisa uusan ahayn ilaahay cunugiisa labadaasna dembi nagu taa annaga inaan dhahno diintana looga baxaa hadduu qofka jahilkii waa loo sharxaa arrimaha kale waaye laakiin qofka ergaas ku dhawaaqa ergu ku dhawaaqa gaalnimo waaye marka insha allahu tacaala ilaahay walaalayaal maalintaas hadda waxaa lagu jiraa xilliga christmaska ama yuulka waxaa rabaa inaad ka taxadirtid diintaada u ilaashanaysid waa inaa number one marka lagu dhaho waxaa dhici karta in lagu dhaho guuyul in lagu dhaha dhici karto ama merry christmas in lagu dhaho then adi maxaa waa jawaabtaa dhiibaysa ma waxaa dhahaysaa waraa mar dambe waxaasaa dhihin waxaas ma aaminsan maa dhahaysaa mise naga tawacaanaysaa mise waxaa dhahaysaa si ka duwana ugu jawaabaysaa mar walba laba shay inaa isku dan inaa arrintan adiga aad samaynaynin uma dhigmato inaa iyagu u diidaysid uma dhigmato inaa caynaysid iyaga laakiin waxaa dhowsa aniga muslina ahay diinaan leeyahay adina diinaan leedahay taada ku dhaqan teedaa ku dhaqma ani taada mu dabaaldegooyo keyga ada haddaa rabtaa u dabaaldegin xoraa tahay marka arrinta oo keliya dhehaysa waxa waaye aniga taada uma dabaaldegooyo marka wanaag adigoo ku salaynaysa arrintaas ergaas markaa dhehaysid haddii lagu dhaho guuyuul inaad meelo ku kulintiina laga yaabaa inaad taxi ku kulintiina laga yaabaa waxaa dhahaysaa aniga adoo mahadsan aniga uma dabaaldegin christmaska mana aniga muslimna ahay diin kala leeyahay diintan kristaanka ma haystay oo saas hadduu ku dhaho guuyuul waxaa dhahaysaa okay maalintaada waxaa dhahaysaa adigana maalin wanaagsan ama waxaa dhihi kartaa bye bye ama sida hadda kuu sheegay inaad dhahdid haddaa waqti haysid waa inaad dhahdid maxaa la ani arrintaas muslim ahay uma dabaaldegi waxyaabaha kaloo ani aan dhaha waxaa ka mid ah weligaa ma aragtay maalin kale qof kale dhalashihiisa u dabaaldegaya ma aragta iyagiise luqadee fahmayaan waa macnaha annaga dhalasho uma dabaaldegna asal ahaan marka saasa aan dhahaa waxay dhaha may sow aniga muslim ahay maalin kale waxa u dabaaldegay ma arkooyo marka su-aal kalaa meeshaas ka dhalanayso su-aasha ka dhalanaysa waxa waaye iyagaba ciid mubaarakayna dhahaan maxaa annaga diida inaan dhahno guuyul inaan dhahno dad badan taasi ku wareersan yihin iyaga wanaagay sameeyaan bini-aadnimina tusaan annaga maxaa u dhihi waana maxaa noo diidaya waxaasan dadkaas asal ahaan ba ay fahmin adiga waxaa leedahay wax ku xiro waxaa leedahay dabar maxaa leedahay dabar aa lahaa sax dabaraa leedahay adiga waxaa leedahay diin kaa celinaysa diin waxa kuu banaan kuu sheegaysa waxa kaa reeban kuu sheegaysa adiga wax ku celiyaa leedahay iyaga wax la celiye ma laha iyaga wax walba dadkaas maxay sameeyaan for example hinduga maxay sameeyaan way sameeyaan waxay sameeyaan wala sadaqad meesha tagaan waxay sameeyaan la sameeyaan muslimiintu maxay sameeyaan ku imaana waxay kula cunayaan wax kasta iyaga kula sameeyaan kaas wax ka celiye ma laha iyaga waxay taageen wax kasta
lugteen furan waa waxa la dhihi jiray qofka xura ah wax ma sameynaa wax ka celinaya malaha laakiin adi muslim ahaan wanaag waa u samaynaysaa laakiin maalinta diimankooda uma samaynaysid oo macnaha lama kama qayb qaadanaysid marka adiga iyaga waxa waa jawaabta waxa waa ciid mubaarak hadda iyaga ku dhahaan iyaga wax celiya malaha aniga diinteeda ay diinaysa ina ilaahay maalintuu dhashay iyaga say u ka saayaan ama ilaahay cunugiis maalintuu dhashay aan u dhaho waa maalintii waa nigu raacsana inaan dhaho ama ugula dabaaldego ergaas inaad ugu dabaaldegaysaa arrintan aniga طالب العلم haga qaadan sheekh mustafa dhageyso culimadu waa weyn soo dhageyso jawaabay ka dhiibayaan muxuu wax qaabka u sharxaan dhageyso marka insha Allah taala culamo caalimiin oo dadka cilmi ilaahay siiya arrintan mar walba ka hadasha adigina diintaada dhooro meesha mar walba inaad raacdid ma wax walba waxaan weydiiyay hadduu qofkaas maanta haddii uu ku imaado aasin sambuus iyo shaah aasiisid oo qofkan wuu cunaa xalaal waa dheh wuu cunaa hilib xalaal haddii uu cunaa asa hadda u tagtid oo ku sii doofaar oo ku dhaho khamrana ku soo shubo dhaho ku soo dhawaa oo wallahi dariskayga wallahi billahi ina ixtiraamo waa cunaa miya marka ixtiraam dartiis طبعا ma cunaysid waa diidaysaa diintaada ku diida exactly tan diintaada ku diidina kala qayb qaata Merry Christmas am guuyul haddii ay jiraan dad oo dhahay guuyul arrimahaas qaadanaya annaga aniga ahaan ka muslim ahaan iyo ilmahayga iyo dadkan ka saayo iyo dadka igu xeeran mar walba waxa u sheegaa in arrintaas la dhihi jiray anigana haga qaadan diinta ku jirtaa tusaale waxa ka nabi maxamed xilligiis ma jirin miya yahuud ma joogin agtiisa mala kulmin miya dad kale dabaaldeg ma jirin muxuu u dabaaldegi waa rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam isweydiis muxuu asagu u dabaaldegi waa oo iyagu ula qayb qaadi waay waxa taas kaaga sii dheer markii uu imaaday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam madiina wuxuu arkay iyagoo Soomaay يوم العاشوراء يقول صوم أرك مركزوا وحنا محاولة صون كأسوم يسين وحنا ومالتي النبي الله موسى لبد بادي وحنا أنا قام نيجا حق له المركزة وصام النبي مالتي وصوم ما الله صوم باسمه كإكي وحنا هدانا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما الله مرك رجع الله ماله سو خلاف يهود أصو إيجا صون كلا صومي لكن هل ما لك سيدنا إيجا هل ما له صوم الله بقى صومنا إنه خلاف له هذه تاصل لك صوت النبي صلى الله عليه وسلم لا بعيدة كجرت مركو إيمانة مدينة أنصارت عيد جرين يقول صمينا أركم حاسب من السنونة وحنا نوعي عيدين وما أساس واحد إلهي وحد مركا إلهي وحد يكون بدلون اللهم على وكفر لي بدن وعيد عيد الأضحى يوحنا يلو بدلونها عيد الفطر لباس عيد أن يلو بدلونها مركا لباس عيد وكفر لي بدن لبدين مال هذا muxuu ugu deewa u dhahay hal arinta aan sii wadno waa laga bedelay marka adoo muslim ah oo soo qarti ilaahay inuu kali yahay ilaahay inuu ilmo lahayn ilaahay inuu qofna u baahaneen ilaahay inuu ummadda dhan u baahan yihiin soo qartay ilaahay la caabudo inuu soo jirin ilaahay kaligiis uu yahay qofka la caabudo waxaas dhan waa soo qarna dan waxa u dabaaldegaysaa miya ilaahay dhashaa jiro cunug ilaahay oo waxa jiro ilaahay bil aadan amal marka ma fahmin waxa u dabaaldegaysaa ma fahmin marka ilaahay khayr ha ku siiyo isku day talabaad waxa aad sameynaysaa ilmahaagana way ku ag dayanayaan hadda maanta adiga dariskaaga hadii u geenayso maalintooda ciida waxa aad sameynaysaa cunugaagana biro u tagaa dhalinyarada ficiisa u tagaa khamri la cabo yaa waxa kiiso ku socaba doofar la cuno waa soo cunaa Christmas tree geedkii guriga lagu soo dhigi doonaa wax kadib because adaa tusaale fiican u ahayd adoona ka raacay hadhowd marka dhihin mar walba waxa ogaata aniga intaana ku ekeeyay ilmihaygu way ku ekeenayaan ama dadkan kale way ku ekeenayaan ma ah tusaale dadka noo ah waxaan faraa ilaahay khayr hada siiyo ina ilaalisiin waxyaabaha sameynaysiin haddii adigoo tusaale noo ah oo dadkan ficil aad samaysid ama hadal aad ku dhawaaqdid waxaa dhacaysa inay dadka muslimiintana arkaan dhalinyarada arkaan ee dhahan qofka tusaalahan ah samaynayo oo tusaalahan noo ahayba diinta isaga oo noogu cilmi badnaay anina waa sameynaa wax idiidaa male dan marka ma lagaa yeelaa ina dhahdid bis ku ekey hadal because wuxuu ku daraa wixii gurigu tagaa wixii la cunaa wax xalaal wixii dhan ku daraa geedkii guriga keensana wuxuu ku leeyahay aniga waxa sameynaa waxay dabaaldeg leeyahay de arinta dabaaldeg ku saabsan tahay arinta oo shactirada leh waxay tahay oo la yaab kale inay jiraan dad Christian ah oo u dabaaldegin maalintan oo yuulka ah uma dabaaldegin dad Christian ah jiro adoo muslim waa dabaaldeg dad Christian ka wax dhaan maya dadkii soo muslimay oo Christian ka ahaayeen
waxay iska diideen inay u dabaaldegaan maalintan Christmaska ah iyagaa diideen hooyada aabahooda u sheegan aabo waa ku jeclahay hooyo waa ku jeclahay sanadka dhan waa kula jooga maalintan ma imaan kari laakiin waxa dunida iga jeclaha ma laha bas way ku ixtiraamaan waa ka ogaawna qofkaas wuxuu soo ahay Kristaan 10 sano adigana muslimnima ku dhalatay weligaa ma arkin markaasa wax leedahay guuyula dhaa Merry Christmas ee wanaag ugu sameey ilaahay dan barakeeyo 15 daqiiqo iga noqotay waa inaa koobaan rabay ma dhihi karno qof muslim inuu dhaha ma aha culummadeena kulina waa ka akhrisana waana dhageysane waana baari kartiin waana soo ogaa kartiin inaysan banaanayn oo qof muslim dhaho gaaladan u dabaaldegaysan ilaahooda maalinta dhashay ama ilaahay cunigiisa maalinta dhashay u dabaaldegay ina dhahna ma guuyul haddii laakiin waa inaa si wanaagsan ugu jawaabnaa waa inaa si ixtiraam ku jirto ugu jawaabnaa oon u sheegtaa aniga taadan kugu ixtiraamaa teeda diinteeda ugu ixtiraam aniga diinteeda waxa aaminsan inay teeda tan ugu saxan tahay aniga taada adiga hayso laakiin aniga teeda ugu saxan haddaan aaminsanin inay diinta islaamka ugu saxan tahay dee admin shaka iga jiro diinta islaamka inay tan saxan horta pointkaas inuu na dhaca rajeynaya insha allahu tacaala diinta islaamka anaga waxa aaminsana tan ugu saxsan inay tahay mid ka saxan ay jiri karin haddaad aaminsanin dadkan tan kala qiraysa inay wax saxnaa karta taasna marka ilaahay ku barakeeyo dhammaantiin ilaahay idin barakeeyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu diinteena nagu sugo muslim dhalinyarteena ilaahay hanuuniyo caruurteena ilaahay diinta ku sugo iyagana oo ka dhiga ilmo wanaagsanaan imaamyo ah diintana ku dhaqma xasaskeena iyo dumarkeena ilaahay kuligooda hanoo barakeeyo ilaahay idin barakeeyo walaalahayow waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo waa lagaa badan yahay dartiis waxa uu sameynayn diinaa leedahay mabaadi'aa leedahay wax ku celiyaa leedahay mabaadi'taada ha ugu tagin inaad dad gaalo ah raali gelisid ama inay ku arkaan nin oo tolerant ah macnaheed nin oo dulqaad badan oo diimanka kala aqbalaya multicultural flair cultural ah ina lagu waxaas diintaada kaaga muhiimsan waa u sheegaa dad gaalo badan waxa diinteeda ilmeyga kulli diinteeda iga muhiimsan diinteeda wax walba iga horeyso marka wax walba diinteena nooga horeyso diinteena uguma tagayno dad inaa ku raali gelino uguma tagayno waajibaadka iyo diinteena waxayna fartay ilaahay idin barakeeyo haddii aan wax qalday ilaa waxaan ka baryay inuu dembi dhaafo wixii aan saxana ilaa waxaan ka baryaynaa inuu ajir naga siiyo adinkana waxaa idinka baryaa inaa arrintan soo laalaabanayso oo kulliba abaaratiin akhrisatiin ogaatiin meesha ka imaata kaaga badan meesha arrintan ka imaata arrintan la dhaha dabaaldeg leh maalin caadi isku bedeshay ma jirto isaga kan hadda dhashay cunuga 17 jirka weydii oo Norwejiga ah hadaa rabtid asaga ku dhaha waa maalintu nabi ciise dhashay asaga ku dhaha asanagu ma ku dhaha ilaahay dhashay ama ilaahay cunugiisa dhashay inuu ku dhaha laga yaaba marka insha Allah taala arrintan waxa rajeena ina meeshan ma ku ekaanayso soo soconaysa oge ina arrinta meeshan ka fahantiin intaan sheegay waa soo baari kartiin mar walba soo gala muxaadarooyinka waaweyn oo culimada waaweyn ka hadleen ilaahay idin barakeeyo annaga muslim ahaan ma dhaheeno guuyul Merry Christmas ma dhaheeno because muslimiin aan nahay annagoo ku ixtiraameena annaga teena nagu ixtiraam adiga taada uma dabaaldegay teeda adina u dabaaldegtid kuma qasba anigana adiga hadda teeda u dabaaldegtid aniga qasab maaha taada inaa u dabaaldego adiga taada wax ku celiman ani wax celiyaan leeyahay biidin illaahi tacaala